حسين oo ka soo qayb galay book feerkan lagu qabtay ama buugaagtan lagu soo bandhigay xaruntan Kensington Town Hall waxaan runtii buugan qortay Faadmo Maxamed Caalin Cureeji oo ka qortay hooyadeed ama taariikh nololeedkii hooyadeed wuxuu ka kooban yahay gabayo geeraaro buraanburo iyo suugaan kala duwan aniguna maadaama aan ahay bahda suugaanta ama ragga gabayaaga waxaan runtii aad u jecelahay buugaagta lagu qoro suugaanta iyo kuwa dhinaca waxbarashada aad uga hadla sababtoo ah afka ayaa marka si cilmiyan looga hadlay waxa la yiraahdaa afku waa wax nool waxa noolana waanu dhintaa waanu koraa marka afka Soomaaligu imika wuxuu kamid yahay luqadaha halista ku jira ee u baahan in la badbaadiyo marka cid kasta oo buug Soomaaliya qorta oo hambalyeynaya waxaan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada daayarta cusub kuwa qurbaha ku koray intuba inay isku dayaan siday u develop gareyn lahaayeen ama u korin lahaayeen afkooda hooyo aad iyo aad baa mahadsantiin magacayga waxaa la yiraahdaa Faadimo Axmed Caalin waxaana la igu naynaysaa Cureeji waxaan ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee dibadda wax ku bartay marka hore tacliinta Soomaaliyeed ficlan waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay iskool gala ugu horeeyay jaamacad ka baxa ugu horeeyay mansab gaara agaasimo guud iyo mansab wasiir ku-xigeenba waxaan hadda Toronto deganahay oo intii 14 sano tan intii dalkii laga soo qaxay halkaas aan deganaa aniga iyo shan caruurtayda ah hooyaday halkaas aan deganahay caruuran ayeeyo ahay marka waxaan muddo ku taaminay inaan qoro buug ku saabsan suugaantii hooyaday Xaawi Jibriil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed ee maansiyahanka ah ilaa si aan taariikhdooda iyo waxqabadkoodii la qorin iyadoo wada dhan waa jirtaa in maansooyinka hooyaday Xaawi Jibriil lagu soo saaray idaacado badan oo ay ka mid tahay BBC-da Voice of America Radio Muqdisho Radio Djibouti raadiyaalka iyo telefishinka baxa Toronto oo codka beesha iyo City TV iyo ay ka mid yihiin marka laakiin waa marakan markii ugu horeysay oo aan maansadoodii aan xul maansadeeda ka mid ah oo 40 maanso isugu jabagabay geeraar iyo buraanbur aan buugaan ka soo saaray aan u bixiyay saa waxay tiri and then she said maansadii iyo waayihii Xaawi Jibriil buugga wuxuu laba af ku qoran yahay af Ingiriisi af Soomaali taasoo u yeelay inay buugga ka faa'iideystaan ma aha kaliya dadka af Soomaaliga ku hadla laakiin ay ka faa'iideystaan xataa dhalinyarada iyo hablaha siiba dhashay qurbaha oo la arko in af Soomaaligooda uusan saa u wanaagsanayn sida aawadeed buugga qayb ka midana waa buug laba af ku qoran af Ingiriisi baan ku qoray marka wuxuu buuggu soo baxay 2008 bishii Juun meelo badan baan aniga iyo hooyaday u tagnay buug akhris oo ka mid ah Toronto iyo Columbus Ohio iyo Kansas City aad baa loola dhacay munaasabadan kaliya ayay hooyo ka qayb galin waxaa jira safarka aad ugu dheer waana qof caafimaadkeedu saa u wanaagsaneen ilaa se meesha waxaa laga akhriyay dad Falastiin Xuseen ayaa halkaan qaar ka mid ah ka akhrisay maanta waxaad malaynaysaa xafladii xaflad yaab lahayd xaflad wanaagsan oo ka duwan xafladihii waxaan rin ahaantii sharafaya qofkii abaabilay asxaabta ay ka mid tahay Dahab Dawlo Axmed Daahir Sheel Maxamed Baashir Falastiin Xuseen Yaasiin inay abaabileen xaflad aad u wanaagsan oo aad ugu riyaaqay diilale waxaa jira waa munaasabad kulmisay wanaagsan oo kulmisay dadka Soomaali magaca Soomaaliyeed sheegtoo dadku ku dhashay oo iyagoo siyaasad iyo khilaaf iyo buuq dadka kala geeyay waqti raaxo leh la isugu yimid waxa ahaa in la wada qaato saacado laga hadlayo suugaanta iyo taariikhda Soomaaliyeed oo ruuxaantii waxaan la buur karina aan ku umaaninayo ku bogaadinayo inay wadadaas sii wadaan asxaabtaydana hadda soo sheegay marka dadkii ka soo qayb galanay dad wanaagsan bay ahayeen waxa ka soo qabay
dad shucaraa ah oo maasayahan oo gabdho iyo wiilal maantoo dhan hadda qaar waa iga qosliyeen qaar waa iga oohiyeen laakiin waxay ahayd wax munaasabad aan iloobi karin dad wanaagsan oo badan ay kasoo qayb galeen buuggiina alxamdulilah waa markii ugu horreyso intii aan keenan layga wada iibsaday waxaan ku weydiin lahayn dadka aan Soomaali ahayn interest badan bay ku leeyihiin dumarka Soomaalida waxay qoraan iyo fikradooda iyo maxaad adigu u malaynaysaa dumarka qoraad buugagaya waxa future-ka siday u soconayso iyo waxaad aragtid guud ahaan haddaan gaar ahaan u hadlo buuggan qofka ajnabiga oo akhristaa wuxuu ku helaya arrimo dhaqankeena ku saabsan arrimo ku saabsan qoyska arrimo gudniinka ku saabsan maxaa jira maansada hooyadii waxyaalo badan oo waxay taabanaysaa gaara waxay taabanaysaa maanso ay waxaa ku jirta ay ku diidayso muxuu ahaa kaga soo horjeesanaysa nin ay isqabeen oo waxa gudbay oo dilay oo marka ay ka dooratay inay furiin intii ay muxuu ahaa u adkaysan lahayd dulli iyo cay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa sida ku nool soo guursataa qaad marka guurka waxa fiican in laga taqaluso marka buugaagta ay waxa joogo maanta aad ugu farxay Fawziya Xaaji Aadan oo soo qadintay buugga oo ku saabsan geed nololeedkii Yuusuf Xaaji Aadan oo ahaa abwaan aan si fiican u aqoon oo soo wada shaqeyno tacliinta sare muxuu ahaa ka soo shaqeeyo iyo akademiyada dhaqanka kadibna sanooyinkii u dambeeyay masilahayay arrimaha dhaqanka iyo culture-ka ku masilahayay tacliinta sare gobolada waqooyi marka iyaduna buuggeedaas waa la dhacay buugga laga Axmed Baashe ka qoray hal aan tabanahayay oo qoray Axmed Baashe oo laga qoray afqalooc isaguna ninaan aad u aqoon abwaanaan aad u qariyo aad u xurmeeyo oo maansadiisu maansadi qiimada ay tahayna waa soo arkay yani runaan gabar la yiraahdo Caashaluul waxay noo tirisay gabay la yaab leh oo 2 jeer la dalbaday oo ay kaga hadlayso waxyaalaha dhibaatada xamar oo cadawgu waa maxaaradu u geystay dilkii iyo dhaqii boobkii dadkii ku agoomoobay dhibaatada Soomaaliya gabaygaas 2 jeer baa lagu soo celiyay annagoo dhanna aad baan ugu qiiroonay oo waxa shucuurtayda u kaxisay marka waa sadaan la iloobi karin intaas waa idinku mahadinayaa waxaan idin rajaynayaa إن شاء الله والله سنتهي بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحل إلى أحمد عبد الظاهر أحمد شال وحانا هي نن صوماليات ودلك أنا مدحكا هانشري هدنا unfortunately دلك أجنبي قحوتكوا دي رجالين تصوماليات إيو بوقتها لقرصو بنجدو ده إيو برنامجيدا أمة الصوماليات أما cultural هالنقطة أما sports أما educational أيان بدي إن كقيم قاطع بدينا أيين أنو قدومي قعد صدام وش هيدوه أنو بوقت آدبانو آخريا قبايا ما هي لكن آدبانو تشعلي poetry أما قبا بوقت آدي عجب سي إلى طبعا كي سنة قدام بيجي وحكا مدى هالكهلال أو لقى محمد باشا كقري أبوان كي ويناي هدراوي وحكم ذا بوجر ما أنت أنا أدو شعر الله أي فاضو مصابر نكتي أو أي هو يد الحاوي جبريل كقرتي وحكم ذا بوجا هل عن تبيي أو حاجة هذا نفق الله أو كقري محمد باشا وحكم ذا للي يرد إنن فيشن شيبس كأوبدنا كقرتي لك أجنبي يا صومالي إلودي بوجن عبد الرحمن أبتدون وقريل ليداه في الصومالي وحقيقة دي قيسسك أنكو ليرجل لي إن عروتودا وإبيانو كبران أيا كم إذا بوقت وجبدا يا نادي يا أدري توجه على هذا بوكلنا وجوجان وشران بوجا أن أسي وذا شعله وحوها بوجا ليداه the crocodile فهذا قلوا عن نور الدين فارح a great Somali writer وقري